su-aashan wuxuu leeyahay qofkan soo weydiiyey aqoon-yahanada sayniska waxay sheegaan xilliyada ay dayax-madoobaadka iyo qorax-madoobaadka ay dhacayso ee warka ay sheegayaan ma la aamini karaa masalada ogaanshaha ama saadaalinta xilliga qoraxdu iyo dayaxu madoobaanayaan masalo ma aha cilmul ghayba ma aha waa mas'alo xisaaba qur-aankana lagu tilmaamay ilaah subxana wataala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamay ashamsu waalqamaru bixusbaan xisaab bay ku socdaan xisaabtay ku socdaan qofku waxaa lagu saadaalin karaa ama lagu garan karaa kuwii tegey ama kuwa soo socdaayey maadaama nidaamka qoraxda iyo dayaxu iyo maalintii iyo habeenku nidaam xisaabeed oo sal ku fadhiya uu yahay oo maanta oo kale sanadkii inaga tegey qoraxdu waxay soo baxaysaa sekankii ay soo baxday duhurku daqiiqaddii buu gelayaa maqribkuna wakhtigii buu soo gelayaa xisaab aan isdabamar lahayn oon daahis iyo hordhaca lahayn bay ku socotaa la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamar wala alleylu saabiqu annahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun qoraxdu dayaxa ma gaadhi karto habeenkuna maalinta kama hormari karo mid walba wareeg bay ku dabaalanayaan oo socdaan wareeg xisaab ah bay socdaan bixusbaanin waay marka mas'aladu masalatu cilmi alghayb ma aha mas'alatu alxisaab wey qadiyadda dayaxa iyo qorax madoobaadkii tegey ma la ogaan karaa ka soo socdana ma la saadaalin karaana waa masale saynis ma aha culimmada muslimiintu xilligay ka hadlayeen qiyaastii inta anigu aan arkay hadda xasuusto 800 sana laga joogaa marka hadda waxa saynis iyo cirbixiyeen iyo naasaa keentay ama aha xilligaasay ka hadlayeen intii tagtayna in la ogaan karo inta soo socotana la saadaalin karo laakiin ay ku xidhan tahay qofku inta uu xisaabta si fiican u yaqaan khaladku kama yimaado inaan wakhtigeedii ku madoobaanin laakiin khaladku wuxuu ka yimaadaa xisaabtii qaabkaad u xisaabtay inuu wax kaa qaldamay iyadoo natiijadu sax tahay baa qofku natiijada gafi karaa saa darteed haddii wakhti la saadaaliyo oy wakhtigii noqon weydo ka hor dhacdaba kadib dhacdo waxaa la garanayaa wakhtigeedii isma bedeline xisaabtii baa wax ka qaldamay waana masalada awqaadda salaada xisaabta lagu qiyaaso waa mas'alada saadaasha xilliyada roobka iyo lagu qiyaaso sunanka ilaahay sunnat allaahi alatii qad khalad min qablu walan tajida lisunnati illaahi tabdiilan bay soo gashaa isma bedelayso habeen iyo maalin saacad iyo xisaab walidaalika nabigeena alayh salatu wasalaam 12 shahran fi kitaab illaahi aayadda markuu fasirayey wuxuu ihi ina azamaana qad istadaara ka hay'atihi yowma khalaqa allahu asamaawaati walard zamanku wuxuu u wareegayaa sidii uu ahaa maalinkii ilaahay cirya dhul abuuray maalinkii cirya dhul la abuuray oo cawiya maalin yimaadeen wareegguu bilaabay sakan iyo daqiiqad isma bedelo ismana dabamaro marka bixusbaanin waaye masale xisaab weeye waa la saadaalin karaa waa la ogaan karaa intee baad aamini kartaa haddii aad aaminto waxba kaa dhima xumaan maayo inteed aamini kartaa intee baad aqoontiisa xisaabeed iyo ku kalsoon tahay intee baad saadaashiisii la arko qofkan xisaab ahaan la aamini karaa masale kale wey haddaad beenaysana dembi maaha oo ninkan saadaashiisa waa nagala taga dhahdo haddaad rumaysatana dembi maaha wabillahi tawfiiq